ተካሄደው ኦፕሬሽን ዋና የምንላቸው ቦታዎች ተለቀዋል። ዛሬ እንደምታዩት ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ባቲ ሙሉ በሙሉ ተለቋል እና ሙሉ በሙሉ ሸዋን የከሚሴ አካባቢ፣ ባቲ አካባቢ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴን ጨምሮ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo talaada ah bisha December waa 7 sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la wareegay magaalada Daziya iyo Kombolja. Afayeenka kooxda TPLF oo ka hadlay qabsashada ciidamada dawladda ee magaalooyinka Daziya iyo waliba Kombolja. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Haddii aan ku bilowno dagaalada Itoobiya, ciidamo uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa la wareegay magaalooyinka Daziya iyo Kombolja. Magaalooyinka Daziya iyo Kombolja oo barihii ugu dambeeyay ay dagaalo xooggan ku dhex marayeen ciidamada TPLF iyo waliba ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya oo halkaasi weerar culus ku soo qaaday, ayaa la sheegay in haatan ay gacantooda si buuxda u gashay, isla markaana uu halkaasi hoggaanka u hayay ciidamadaasi la wareegay magaalooyinka Kombolja iyo Daziya Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo barihii ugu dambeeyay hogaaminayay dagaalada waaweyn ee dalkaasi ku dhex maraya ciidamada dalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF iyo kooxaha Oromada. Kooxaha TPLF iyo Oromada oo horey ula wareegay magaalooyinka Daziya iyo Kombolja muddo ku dhow bil, isla markaana halkaasi ku sugnaa, ayaa haatan lumiyay gacan ku haynta magaalooyinka muhiimka ah ee Daziya iyo Kombolja. Magaalooyinka Daziya iyo Kombolja ayaa ah magaalooyinka ugu soo xiga magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa marka la eegayo dhinaca axmarada. Magaalooyinka Kombolja iyo Daziya oo ay ku sugnaayeen muddo bil ah kooxaha TPLF iyo Oromada ayaa haatan la sheegay in xoog lagula wareegay, waxaana halkaasi joogay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo khudbado ka jeediyay. Waxa uu sheegay in ciidamada dalka Itoobiya ay yihiin kuwo xooggan, isla markaana kooxda TPLF la soo gabagabayn doono goordhow. Waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in ciidamada kumaandooska ee dalka Itoobiya ay la wareegeen magaalooyinka Kombolja iyo Daziya, isla markaana kooxihii TPLF iyo Oromada ay halkan ku sugnaa. Waa sida uu sheegay isagoo dhex jooga magaalada Daziya inay halkaasi isaga baxeen, isla markaana lagu daba jiro oo looga daba tegi doono meel walba oo ay tagaan kooxaha uu yiri waa argagixisada. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo baryahanba hogaaminayay dagaalada waaweyn ee dalkaasi ku dhex maraya kooxda TPLF ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay furimaha dagaalka tan iyo markii uu ku soo biiray furimahaasi dagaalka ee uu toos u hogaaminayay ciidamada dalkaasi Itoobiya. Waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in ciidamada dalka Itoobiya ay goordhow soo gabagabayn doonaan kooxda argagixisada ah ee TPLF. Waxa uu sheegay inay lahayn tabar ay isku horjoogsadaan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, isla markaana lagaga daba tegi doono meel walba oo haatan u baxsadaan. Waxa uu sheegay in magaalooyin dhowr ah ay weli ku harsan yihiin gacanta cadowga, waa sida uu sheegay, isla markaana la doonayay in laga xoreeyo. Ciidamada dalka Itoobiyana ay u saaran yihiin qarka oo ay doonayaan inay galaan oo kaliya. Waxa uu sheegay magaalooyinka xuduudka ku teedsan ee Waldheya iyo waliba Zamras inay weli ku harsan yihiin gacanta ciidamada TPLF. Waxa uu sheegay in magaalooyinkaasi ay ciidamada dalka Itoobiya qarka u saaran yihiin, isla markaana ay dul joogaan oo ay doonayaan kaliya inay galaan. Waxa uu sheegay in ciidamada TPLF oo haatan u muuqda kuwo aan waxba iska dhicin karin ay magaalooyinkaasi banayn doonaan saacadahan lagu soo aadan. Magaalooyinka Daziya iyo Kombolja ay haatan galay gacanta dowladda federaalka Itoobiya ayaa ahaa magaalooyinkii hurdada u diiday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, isla markaana khalkhalka badan ka abuuray magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Waxaana magaalooyinka Kombolja iyo Daziya oo gacanta Tigrayga iyo Oromada galay bil ka hor ay halkaasi khalkhal badan ka abuurtay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, waxaana bilaabatay in magaaladaasi laga kala qaxo. Waxaana guud ahaanba isbedelay jawiga dalka Itoobiya iyadoo magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ay kaabiga u soo fuuleen kooxahan jabhadaha ah ee isbahaysanayay waa Tigrayga iyo waliba Oromada.
waxay sheegeen inay geli doonaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa isla markaana halkaasi ay xukunka kaga tuuri doonaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. balse Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ahaa janaal ciidan oo ka tirsanaa ciidamada dalka Itoobiya ayaa haatan dhexda u xidhay sidii uu dib ugu riixi lahaa ciidamadan TPLF-ta iyo weliba kuwa Oromada, waxaana guuleystay dabajooga kasoo hooyanayay tan iyo markii uu ku biiray furimaha dagaalka ee dalkaasi. wuxuu horey uga bilaabay gobolka Canfarta isla markaana halkaasi laga sifeeyay kooxaha TPLF-ta iyo Oromada. haatanna waxaa gacantiisa soo gashay laba magaalo oo muhiim ah isla markaana ahaa magaalooyinka ugu muhiimsan ee haysteen ciidamada TPLF-ta marka la eegayo gobolka Axmarada iyo weliba horumarka dhanka caasimadda. kooxda TPLF-ta ayaa haatan isku urursanaya gobolkooda isla markaana doonaya inay difaac ka galaan xuduudka ay la leeyihiin gobolada kale ee dalkaasi. balse waxaan sugi doonaa maalmaha soo socda iyo waxyaabaha halkaasi ka dhici doona, iyo bal sida ay isku difaaci doonaan ciidamada TPLF-ta oo haatan dharbaaxooyin culus ay kasoo gaadhayaan furimaha dagaalka. dhinaca kale, afhayeenka kooxda TPLF-ta oo goor dhaweyd ka hadlay labada magaalo ee muhiimka ah ee ay lumiyeen kooxda TPLF-ta isla markaana ay soo galeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay in kooxda TPLF-tu ay tahay koox isdifaacaysa isla markaana haatan ay uga baxeen istaraatiijiyada dagaal magaalooyinkaasi. wuxuu yidhi wax dagaal ah oo aan la galay ma jiro ciidamada dowladda Itoobiya ee halkaasi isku urursanayay. waxuu sheegay in ciidamo diyaarsan oo weliba u diyaarsan inay magaaladaasi qabsadaan aanay dowladdu halkaasi keenin, isla markaana iyagu ay doorteen inay isaga baxaan magaalooyinka Deze iyo Kombolja. waxuu sheegay in qorshaha dagaal uu u yaalo ciidamada TPLF-ta isla markaana iyagu ay dejinayaan istaraatiijiyadaha dagaalka. waxuu sheegay in magaalooyinka Deze iyo Kombolja ay muddo haysteen isla markaana ay haatan uga baxeen istaraatiijiyad dagaal. waxuu sheegay Getachew Reda in ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo ciidamada TPLF-tu ay isku wajahayaan goobaha dagaalka isla markaana la ogyahay cidda gacan sarreysa. waxuu sheegay in meelaha ay ka baxayaan ay uga baxayaan istaraatiijiyada dagaal isla markaana aanay jirin wax awood sheegasho ah oo uga yimid dhinaca dowladda isla markaana halkaasi ay uga baxayaan. waxuu sheegay in ciidamada TPLF-tu ay yihiin kuwo adag isla markaana ay yihiin kuwii gaadhay kaabiga magaalada Addis Ababa. waxuu intaasi ku daray in ciidamada TPLF-tu ay haatan difaacayaan gobolkooda Tigrayga isla markaana ay dagaalo adag la geli doonaan maalmaha soo socda ciidamada dowladda ee is urursanaya. waxuu sheegay in istaraatiijiyada cusubi ay kusoo dagaaltegi doonaan uuna halkaasi ka dhici doono dagaalo waaweyn magaalooyinka haatan gacantooda ku hadhay. hadalka Getachew Reda ayaa imanaya iyadoo kooxda TPLF-ta haatan gadaal loo riixay isla markaana kusii siqaya xuduudka gobolkooda. inkastoo kooxda TPLF-tu ay weli haysato magaalooyin ka mid ah gobolka Axmarada, haddana ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa weli kaabiga u saaran magaalooyinka ay haatan haystaan ciidamada TPLF-ta ee ka tirsan gobolka Axmarada. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaanba wararkii nooga imanayay dalka Itoobiya. intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo.